ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawa doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo shaacisay in ay qabatay xubno shabaab ah oo la xiriir leh Somaliland oo war ka soo saartay xiriirka ka dhaxayn kara kooxda Al-Shabaab madaxweyne Farmaajo oo shuruud ku xiray siideenta wasiir Cabdirashiid Janan Qadar oo Al-Shabaab siisay lacag xoogan si loo dhiso wada ay is hortaageen safiirka UK ee Soomaaliya oo gaaray Hargeysa iyo kulamo uu la yeeshay Muuse Biixi Cabdi wasaaradda arrimaha dibadda oo xafiis ka furatay Garowe ra'iisul wasaare Kheyr oo ballan qaaday siideenta Sheekh Mukhtaar Robo al-Mansuur iyo magtii dadkii lagu dilay Baydhabo intaasina waxay qodobada ugu door koran warkeena markaani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan guddi ka socday maamulka Jubbaland iyo waxgaradka Gadow oo la kulmay madaxda hay'adda amniga iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in la hordhigay shuruudo lagu sii deynayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan guddigani ayaa sheegay in shuruudahani uu ka yimid dhanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo looga baahan yahay Jubbaland in ay fuliso si loo sii daayo Janan Axmed Maxamuud Cumar gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay in ay la kulmeen mas'uuliyiinta dowladda laakiin laga dalbaday shuruudo u muuqday kuwa siyaasadeed oo loo baahan yahay in la fuliyo si loo sii daayo wasiir Janan kulamo aan la yeelanay madaxda hay'adda nabad sugidda Soomaaliya iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka waxayna hordhigeen qodobo uu madaxweynuhu doonayo in aan fulino ka hor sii deynta wasiirka ayuu yiri Axmed Cumar wuxuu uu sidoo kale tilmaamay in qodobada la hordhigay dhammaantood ay yihiin kuwa ku aadan kala qaybinta bulshada deegaanada maamulka Jubbaland qodobada qaarkood waxay ahaayeen qabyaalad cad kala qaybinta iyo ishorkeenida dadka reer Jubbaland ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Jubbaland Axmed ma uusan shaacin waxa ay yihiin shuruudaha hase yeeshee wuxuu uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu qaadi doono wixii dhibaato ah oo ka dhasha xariga wasiirka maadaama dadka deegaankaasi lagu wado kala qaybin sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska ay Garowe ka furatay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya xafiiskani oo arrimaha mas'uuliyadda u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shaqadiisu noqonayso fududeynta dukumeentiyada qaadashada baasaboorka oo awal loo aadi jiray magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Crash oo ka hadlay furitaanka xafiiska ayaa bogaadiyay xafiiska ay Garowe ka furatay wasaaradda arrimaha dibadda kaasi oo fududeynaya dukumeentiyada awal safar loogu aadi jiray xafladda furitaanka xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa madaxweyne ku-xigeenka ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland iyo mas'uuliyiin ka socday dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland sareeya gaas Yaasiin Cumar Dheere oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada maamulkaasi ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaana xiriir la leh maamulka Somaliland sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa sheegay in xubnaha la qabtay ay xirteen in ay yihiin Al-Shabaab isla markaana ay isbahaysi leeyihiin Somaliland sida oo kale wuxuu tilmaamay in xubnahani lagu qabtay agab iyo dhaqaale laga keenay Somaliland una wadeen buuraha galgalo oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab dhinaca kale ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland oo ku aadan raggaasi ay qabteen ciidamada Puntland dhawaan ayay ahayd markii ay Puntland shaacisay in ciidanka Somaliland iyo Al-Shabaab oo wada socda ay duulaan ku soo yihiin gobolka Sanaag labadani maamul oo daris ah ayaa waxay isku hayaan gacan ku haynta gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya sida la xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedo Sheekh Mukhtaar Robo al-Mansuur oo dowladda ay sanadkii hore ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ra'iisul wasaare Kheyr iyo odayaasha ayaa ka wada hadlay sida loo tilmaamay 15 qof ee lagu dilay Baydhabo sanad ka hor markii ay socotay doorashadii koonfur galbeed Soomaaliya kuwaasi oo hadda la sheegay in ay dowladdu magdhow ka bixinayso inta uu socday kulankaasi ayaa la soo hadal qaaday xariga loo geystay wadaadka dowladda u xiran ee Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur
waxayna odayaashu ka dalbadeen ra'iisul wasaare Khayre in xarigiisa la siiyo dowladuna ay garaabto xarigiisa waxaana la sheegay in odayaasha iyo ra'iisul wasaare Khayre ay isku afgarteen in la sii daayo Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur iyadoo ra'iisul wasaare Khayre ballan qaaday in dowladdu ay bixin doonto magta dadkii lagu dilay magaalada Baydhabo dabayaaqadii sanadkii tagay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaamiyo safiirka Ingiriiska Soomaaliya Ben Fender oo gaaray Hargeysa danjira Ben iyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxaa la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka Soomaaliland iyo Ingiriiska ammaanka guud ee deegaanada Soomaaliland doorashooyinka mashaariicda horumarineed iyo wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland Muuse Biixi ayaa dowladda Ingiriiska uga mahadceliyay taageero uu sheegay in ay la barbar taagan tahay Soomaaliland isagoo oo sheegay in Soomaaliland ay ka go'an tahay adkeynta xiriirka ay la leeyihiin UK iyo guud ahaan beesha caalamka sida oo kale wuxuu sheegay madaxweyne Muuse Biixi in wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka xumad ahaan ka taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka Soomaaliland hore ugu bayaamisay ugu dambeyntii waxay madaxweynaha iyo madaxda hay'adda dalka Ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee David Damon Briston kala saxiixdeen wajiga labaad ee kaalmada dalka Ingiriiska ka qayb qaadanayso sanduuqa horumarineed Soomaaliland ee lagu maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee lagu fulinayo dowladda Qatar ayaa lacag $100,000 ah siisay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dhawaan hakiyay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye sida ay ogaatay warbaahinta Al-Shabaab ayaa toddobaadyo ka hor joojiyay dhismaha wadadani kadib markii ay u hanjabeen shaqaalaha dhismahani iyo shirkadaha qandaraaska qaatay warbaahinta ayaa ogaatay in lacag ka badan nus milyan ay Al-Shabaab ka qaateen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Qatar oo maamulaya dhismaha wadadani si loo fasaxo isla markaana dib loo bilaabo lacagta ayaa la rumaysan yahay in la soo mariyay shirkadaha dhisayay wadada mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in hadda ay dib u bilowday dhismaha wadada isla markaana ay dowladda Qatar bixisay lacagtaasi Qatar waxay lacagtani bixisay kadib markii ay shaqada socon weysay waxaana sidoo kale dowladda Soomaaliya ay ogolaatay in lacagta la bixiyo maadaama aysan awoodin ilaalinta wadada haddii la dhiso iyo inta dhismaha socdo iyo xaqiiqada ah in ay doonayso in wadada la dhiso Al-Shabaab ayaa shirkadaha dhismaha wadada u sheegay in wadadani aynan dhisnaan doonin haddii ay shaqada dhammaato sida oo kalena ay soo weerari doonaan inta shaqada socoto waxayna arrinkaasi sababtay in dhismaha uu istaago lacagta ay bixisay Qatar ay siisay Al-Shabaab ayaa imaanaysa xilli 22 uu wargeys New York Times ee Mareykanka daabacay in ganacsade xiriir la leh amiirka Qatar uu safiirka Qatar ee Soomaaliya u sheegay in weerar ka dhan ah Imaaraadka Carabta bishii May laga fuliyay magaalada Boosaaso ayada oo loogu daneynayo dowladda Qatar bishii Juun dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Masar iyo Bahrain ayaa xiriirka u jaray Qatar ayaga oo ku eedeynaya in ay xiriir la leedahay isla markaana taageerto kooxaha argagixisada caalamiga ah lacagta Imaaraadka Qatar ay siisay shabaab iyo eedeymaha la xiriira ku lug lahaanshaha weerarkii bishii May ee Boosaaso ayaa sii kordhinaya tuhunka laga qabo in Qatar ay maalgeliso argagixisada xukuumadda Soomaaliland uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si adag uga hadashay eedeymihii ay maamulka Puntland ula xiriirinaysay kooxda xagjirka ee Al-Shabaab Cabdirasaaq Saciid Bulaale abaanduulaha koowaad ee ciidanka Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland aysan marnaba xiriir la lahayn kooxda Al-Shabaab isaga oo xusay in kooxdaasi aysan saldhig ku lahayn deegaanadooda abaanduulaha koowaad ee ciidanka Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay isaga oo ku sugan degmada Badhan ayaa wuxuu yiri waxaanu ka jawaabeynaa hadalladii dilqaafka ahaa ee uu taliyaha ciidanka Puntland oo bishan 5teedii Badhan kaga hadlay hadalladaasi oo ahaa in uu Soomaaliland ku tilmaamay Al-Shabaab ama in ay Soomaaliland iyo Al-Shabaab iskaashadaan midda haddii aan ka jawaabo runtii caalamku waa uu og yahay in dowladda Soomaaliland aynan Al-Shabaab iyo burcadbadeed midna saldhig ku lahayn deegaanana ku lahayn xildhibaanana lahayn kana caagan yihiin
wuxuuna intaasi ku sii daray taliyaha ciidamada Puntland waxaan leeyahay hoos u eeg deegaankaaga halka ay degan yihiin intay ku jiraan iyo inta goobood ee ay ku leeyihiin halka aad sheeganayso iyo ciidanka aad xukunto intii ay ku jiraan waxaan ka hadlayaa in uu Badhan ku sheegay caasimadda labaad ee Puntland maanta ka hadli maayo in Badhan ay Somaliland tahay laakiin waxaan u sheegayaa taliyaha in xadka Somaliland uu Boosaaso ku jiro 15 kiiloomitir Qardhana uu u jiro 7 kiiloomitir Garowana uu u jiro 5 kiiloomitir taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Sareeye Gaas Yaasiin Cumar Dheere ayaa dhawaan wuxuu Somaliland ku eedeeyay in ay ka sheeganayso kooxda Al-Shabaab isla markaana ay duulaan ku yihiin degmada Badhan isaga oo carabka ku adkeeyay in ay samarnaba Puntland weerar ahayn oo ay iska difaaci doonto cid kasta oo duulaan ku ah mas'uuliyiinta ugu sareysa Somaliland iyo Puntland ayaa inta badan dhanka warbaahinta isku mariya eedeymo culus kuwaasi oo marar badani ciidamadoodu ay ku wada dagaalameen gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ka taagan tahay xiisadda labada maamul